dumarkuba adunba igu dhaga nuglaayo aday soo dhaweeye dhawacii horeen qabay waxa tahay dhakhtaradii mudayga dhayayso wadi dhiirigelise. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. soo dhawaada asxaabteyda qaaliga meel kasta aad joogtiin kusoo dhawaada channelkayga Cutiya channel. fadlan haddaa ku cusub tahay subscribe saar, gambaleelka furo, like gare, share gare, commentigana ila soo wadaag. aad iyo aad baa u mahadsantihiin asxaabteyda qaaliga. soo dhawaada meel kasta aad joogtiin. maanta waxaa inii hayaa sheeko oo qiso xanuun badan oo qiso jacayl ah oo ila soo wadaagay wiil walaalkay ah, sidoo kale idinkana walaalkiin ah. wuxuu igala soo wadaagay Facebook. aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa. thank you so much baan leeyahay walaal qaali. qisada jacaylkaas sida tan ayay u dhacaysaa asxaabteyda qaaliga. wiilka wuxuu ka sheekeynayaa qiso jacayl oo aad iyo aad u xanuun badan. waxay ahayd muddo aad iyo aad u fog, hadda adiga ilaa 5 sano laga joogo. adiga qiyaastii wuxuu ii sheegay inay ahayd xilligii 14kii meelahaas. marka wuxuu dhahay gabadha magaala iskula nooleyn, magaaladii markaa iskula nooleyn iskuul baa isla dhiganaynay muddo adiga aad iyo aad u badan ayaan isjeclayn oo aad iyo aad baan isku jeclayn. midka kale jacaylkiisa muuse u sheeganin markii hore, midka kale uu ka cabsanayay. gabadhii anagoo sida iskula nool oo sida iskula joogna magaaladii waxaa dhacday magaaladii aan ku noolayn inay ka dhacday adigu muddo 1 sano markii laga joogay baa waxaa ka dhacday magaaladii dagaal baa ka dhacay. dagaal beeleedyo ayaa ka dhacay. adigu dabcan waxaan u malaynayaa inay Soomaaliya tahay, waayo badan ayada dagaal beeleedyo meelahaas ka dhacaan. marka dagaal beeleedyaa ka dhacay uu yiri magaaladii. gabadhii waa la qaxay, magaalada waa laga qaxay, meel kale loo qaxay. marka magaalooyin badan oo ku heeran magaalada ayaa dadka u qaxeen. markay dadkii qaxeen gabadhii waa isweynay buu yiri, anoo aad iyo aad u jeclaa. ayaduna sidaas oo kale informationkeeda marka dambe si ila wadaagayso ayaduna aad iyo aad ii jeclayd. marka waxaa dhacday magaalooyinkii ay loo qaxay baan gabadha in badan ka raadin jiray. hadda magaalaan tegi jiray, waan wareegi jiray. adigu muddo markii la maqnaa baa magaaladii nabadeedii iyo sideedii normalka ahayd kusoo laabatay. waa soo laabanay, dadkii dhan way soo wada laabteen. gabadhii daydigeeda anoo ku jira oo iskuulaadkiina aan weli la furinin oo cabsi laga qabo, iskuulaadkii aan weli la furinin oo dee cabsidii colaadii weli la qabo baa waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid anoo meeshii maraya oo aan meeshii lugeynayay ayaan qaylo maqlay ama dad isla buuqaaya, dhalinyaro isla buuqaysa. waxaan fiilgareeyay ama aan cod ka dhex maqlay gabadhii codkeedii aan raadinayay muddo, adiga aan muddada raadinayay oo jacaylkeeda aan keligay la bukay. marka waxaa sameeyay waan soo fiiriyay meeshii dariiqi waan soo fiiriyay. gabadha aabaheed ayaa guri noo dhawaa oo meesha ka ag dhawaa albaab buu furay. anoo gabadhii fiirinaayo meeshii albaab buu furay, aabihii wuu soo baxay. dhalinyaradii fowdeynaysa gabadha meesha way ka kala yaaceen. anigana meeshii aan joogay, meeshii aan marayay micnaha. marka musaygii wuu la hadlay gabadha aabaheed aan dhahee wuu la hadlay. wuxuu dhahay yaa ku fowdeynaya aabo. marka anoo meesha marayay ayay waxay tiri wiilkan ayaa i fowdeynayay. marka wiilkii aabihii wuxuu igu dhaqaaqay inuu marna i canaanto marna uu i waaniyo. aniga hadalkiis maba aan danaynaynin ama maba u jeedin. musaygu aabaha wuxuu sheegayo iyo waxaasoo dhan maana dareemaynin, waayo waxaan arkayay gabadhii aan aadka u raadinayo oo muddada aan raadinayay oo meesha taagan ayaa ii muuqato. ayadaa indhahayga ku jeedeen, qalbigayga iyo niyadeydii waxay dhan ayadii fiirinayeen. marka gabadhii aabihii wuu la hadlay, wuxuu ku yiri aaba soo xarood. aniga cabaar buu i waaniyey, cabaar buu marna wuu i canaantay marna wuu i waaniyey. sidoo kale oo wuxuu igu dhahay aaba saasoo kale khalad waaye, gabar walaasha lama dhibaateeyo, waxaasuu igu dhahay. anigana waxaasoo dhan dheg jalaq maana siinaynba, waayo gabadhi jacaylkayga meesha taagneed ayaan arkayay. bas gabadhii waan la hadlay, abaysee tahay, caafimaadkaaga ka waran, xaaladaada ka waran. meeshii ayaan iskala qaadnay. wixii maalinta ka dambeeyay jacaylkeeni meeshaas ayuu ka bilowday buu dhahay.
waan kala tagnay anagoo taleefano iyo waxba kala qaadanin, iskuulaadkiina aan weli la furinin. haddana maalmaha kamida ayaan meeshii dariiqi soo maray gurigii gabadha gurigeedii. gabadhii ayaa meesha iiga soo baxday, waa is salaanay. haddana sidoo kale waxay ii soo saartay warqad dheer oo aan u maleeyay in warqad dheer oo warqad jacayl ah oo ereyo jacayl ay ku qoran yihiin oo muddo dheer la qoraayay ayay ii soo saartay oo taleefankeediina ku qoran yahay. marka waxay dhahday meeshaan jacaylkii waa ballanay, taleefankeedii baan ka taleefankii ay ii soo qortay baan qaatay, waan kasoo wacay. jacaylkiina halkaasuu ka bilowday. adiga maasha allah meeshii aan jacaylka ka wada bilownay. kabacdi waqtinadaan isku raaci jirnay, farxadeenii iyo reyreynteenii iyo jacaylkeenii. qofba qofka kale inuu ku ooyo oo dhaho aniga intaasoo sano, hal sano iyo bar jacaylkaagaa la noolaa, markii la qaxay iyo markii la dhibaatoonayay adigaan ku raadinayay, qaxaas iyo waxaas maana arkaynin, anigan raadiskaagaan ku jiray. sidiisay u ahayd anagoo farxadii ku wada nool oo dee jacaylkeenii iyo reyreynteenii maasha allah aan nahay. ayaa waxaa dhacday nin dhalinyaraa waa iska garanaysaa, markuu helo waa siduu walaalka iila soo wadaagay, markuu helo qof ku kalsoon oo mar walba farxad siinayso wuxuu sameeyaa mar walba inuu qof kale la xiriiriyo ama uu dhalinyaro kale la shukaansado ama gabdho kale uu la shukaansado. khilaaf ayaana soo dhexgalay aniga gabadhii, khilaafkaasoo ah mid aniga xaggayga ka yimid oo aan mar walba gabdho la shukaansanayay. gabdhihii ayay igu aragtay, intaa ka qarin kara waa ka qarinayay, laakiin gabdhihii ayay igu aragtay. masayraa meeshii imaaday, gabadhii waa isku dhacnay, way iga fogaatay. xataa heer ay gaartay intay nin kala baratay ama wiil kala jacayl la wadaagtay inay magaaladii aan joogayba ka haajirto oo ay meel kale nolol ku samaysato. anigii markii gabadhii aan jeclaa iga fogaatay oo meel kale iga aaday oo qof kale iga raacday oo aniguna aan khaladka iska lahaa, wuxuu yidhi murugaan dareemay, kaligay baa ku cidlooday, jacaylka baa ku cidlooday, gabdhihii aan shukaansanayo dhan waaba nacay. waayo ayaga qalbi umaana haynin, mar walba ayadaan qalbiga ku haayay, mar walba ayadaan farxadda siinayay, anigana sidoo kale ayadaan farxadda ka helaayay. markay iga fogaatay shukaansi dhanba waa iska dhaafay, nolol iyo shukaansi inaan gabar lahaasaabo dhan xaggaan iska dhigay. muruga ayaan la noolaa in badan. gabadhii waxaan ka war helay wiilkay isjeclaadeen ama ay xiriirka la samaysay oo aniga oo micnaha markaan niyaddii ka jabiyey oo qalbigii ka jabiyey ay iga raacday inay nolol la wadaagtay ayaan maqlay buu yidhi. ilaa haddeerna qalbigayga kamaan saarinin, sidii ayaan u jecelahay. marka aad iyo aad baan uga raaligelinaya walaalkay arrinkaa xanuunka badan oo qabsaday. waxaa kaloo idinkana aan idinka codsanayaa inaad lasoo talisaan wiilka walaalkeena oo aad talooyin lasoo wadaagtiin, waayo jacayl wuxuu yahay waa garanaysaa, keligaa markaad ku cidlootin waad garanaysaa oo qofkii aad jeclay weliba si sahla aad ku weydid oo waxa bisiid oo haddii xitaa qofka ay isku dhacdaan oo dhibaato weyn inay kala qabsato waad ka samri kartaa. marka asxaabey idinkana waxaan idinka sugayaa ama idinka rajaynayaa inaad saasoo kale qisooyinkiina ay ila soo wadaagtiin insha allah. ana ayni kasoo waramo dhanka hoose ayaan inii soo dhigay facebookayga iyo emailkayga. aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa videogan daawashadiisa. wiilka walaalkiinana waxaan idinka codsanayaa inaad commentiga ama meel kastoo ugula soo talin kartid oo aad igala soo xiriiri kartid aad la soo talisid, anigana insha allah taladiina waa u gudbinayaa. waayo wuxuu dhahay ilaa haddeer gabadha qalbigayga kamaysa bixinin, jacaylkeeda ayaana la noolahay, waana uga haajiray gabar kastoo adduunkan ku nool. aad iyo aad baan inii salaamayaa, caafimaad iyo barwaaqana inii rajeeyay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. love you guys, meel kastoo aad joogtiin. ha ka hilmaamay inaad share garaysid, like garaysid iyo comment, subscribe tana igu caawi. bye bye.